بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد maalin kale oo wanaagsan oo aan u fadhino kitaab kale oo runtii aad u awood badan oo moodeen intii hore way ahayd isaga inaan ka hormarino laakiin de qadartu ay doontay inuu numberka afraad gala maadaama kutubtii hore koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay idin hore u soo aragteen oo aynu ku soo bandhignay suxuntii kuwan ka horreeyay oo laga yaabay inay idin daawateen koorsii horreysay. marka kan wuxuu noqon doonaa kitaabkii afraad xagga maqaamkan aad moodo inuu yarahay ugu awood badan yahay maadaama uu ku salaysan yahay midda koowaad caqiidada uu ka hadlayo iimaanta qofka muslimka laga doonayo, haddana uu ku salaysan yahay Bukhaari iyo Muslim labada kitaabe ugu xagga sixada ugu sarreeya marka laga yimaado kitaabka Ilaahay oo Qur'aan Kariimka. marka sidaynu horay wax badan baa uga hadalay amba aydin meelo badan oo hore nooga dhageysteen sheekh doctor maxamuud sheekh cali xasan aljizani weeye kaatibka qoray kitaabkan. doctorku kutub badan buu leeyahay sidaan marar badan oo hore sheegnay ilaa 40 kutub bay gaarayaan kutubtiisa. marka waxaynu u qalab qaadanay oo aynu u dhardhiganay inaynu kutubta kasoo bixinaa halkay ku jiraan oo ay nuurka soo dhigno iyadoo danta aanu leenahay oo kaliya ay tahay number 1 cilmiga inuu meel walba gaaro oo cilmiga la faafiyo inagii ka tusaale qaadanayna balaqo canna walaw aayab iyo in ay noqoto mid lagu baraaro tan la xiriidha markii aynu ka hadlaynay amba aynu ku taagannahay arrimaha la xiriira duniyadan maanta oo qof waliba sida la qoray amba sida dhiganay tahay in qof waliba uu leeyahay hal jazaa wal ihsaan ila al ihsaan. qofku hadduu fal wanaagsan sameeyo falka wanaagsan buu ku jaango'an yahay tan uu ka heli doono rabbiga. marka sheekh khayr badan Allah siiyo miisaanka xasanaadkiisana Allah u saaro. in badan buu isku dayay in uu cilmiga waasiciyo. marka inaguna de inaynu inagii oo si wanaagsan oo xoogan u dhigayna maqaamka uu naga mudan yahay isaga iyo ragga la midka aan ahayn ugu sawirtay arkaya maqlayda inaynu booskooda dhigno. marka maanta waxaynu u fadhinaa kitaabka axaadiith al-caqiida oo lagu saleeyay axaadiistii Bukhaari iyo Muslim ku jirtay iyo kitaabkii Qur'aanka ah. marka bal haddaan sheekha dib ugu laabto oo niraahdo sheekhu horta bal maxaad marka ugu horeysa u dooratay inaad caqiidada aad xoogga saarto iyo adigii caqiidadii xoogga saaraya maxaad Bukhaari iyo Muslim xadiistoodu kaliya marar badan aad aragto muttafaq calayhi in lagu tilmaamo aad u dooratay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إن شاء الله تعالى أنيقو جعل إن سوق قابية جوابته ودكتور علم الليث ويدي أو محا مارت دورة موضوع عقيدة محاسة صحيح بخاري مسلم هدنا رجي أئمة هاي أنت وصل صارت حديثه أو صارتي سؤال أدي رفع عن وياه إن شاء الله تعالى ورتمركوا وريس عقيدة ذينا إن حجنا واجب إن قلت هاي هدي هان هاي الحلقة مرتي إلهي رب النبي يسا إن أنا حجنا إله ربي جاني هاي وأنا عابدين إله كله وأنا نقدرين أنا مرتي إله كله أنا أشريك يلين وكلش أنا عابدنا عبادة ذينا هديت هاي عبادة مارتي سر ومارتي مد علنا انت بإلهي سبحانه وتعالى أن أقدرنا عبادة مركع عقيدة نسوي التوحيد كواية مارتي حق مارتي إله نبذ إلهي هذا حق مارتي إلهي سبحانه وتعالى ربي جنوية وخالقين أبوري وأسو مخلوق أبوري إن مركزاس أجانه وأسجم يوح بوكره يوح مارتي وحسورك من ونجلس سبحانه وتعالى مدك إلهي سبحانه وتعالى سفوين يا سفوين يا مقعيال وإسكالي هاي
ayaan caqiidada ku baranaynaa marka caqiidada saasaan mawduuca uga hadlay qofka muslimka ahna hadduusan uusan caqiidadiisa uusan maaragtay aqoon hadda waxa weeye diintiisuna waxaa macnaa ma samaynayso midda kale bukhaari iyo muslim waxaan u doortay waxa weeyaan labada kitaab gaar ahaan bukhaari baa ugu horeeya huma maarata asaxu lkutub maarata bacda kitaab illah kitaabaha dhan iyagoo asaxsan kitaabka ilahay ka bacdi waa la isku waafaqsan yahay aimada dhan waxay isku waafaqsan tahay bukhaari inuu ku xigo kitaabka ilaahay muslim inuu ku xigo culamada qaar baa yidhahda maqaaribta gaar ahaan muslim baa ku xiga laakiin sida badan bukhaari ayaa maarata kitaabka saxiixa kitaabkaasi weeye marka bukhaari imaam albukhaari marka waxaa la oran jiray محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وحده شيء سنة كهجرة هاي بقول يسقاشني أفر أيوه شيء وحده انتي بقول يكونتني لحدا وحده انتي إمام كاسو أحاديثي وجمعية ومارتي ما شاء الله إمام البخاري لحكم أيه هايين بالي هذا لحدا كون كل مياه لحية 8 سنة علماء قالوا حيان لبي لو تصل أيوه لحية كون كاس لحداس كن حديث قرها يا هذا إمام البخاري وحكون انت سنة وحكون انت لحدا يلبو سنة كلي السوق جرى أيوه انت مركا إمام البخاري ساس أيها بخاري أنا وحوي ملك مدوي مارت الروشكا مقالة أي هاد باش لون سبي كتاب كلي هذا كتاب كلي هذا مسلمنا وحوي إمامك إمام مسلم وحوي مؤلف وحوي مسلم ابن الحجاج القشري النيسابوري ayaa la yiraahdaa waxa lagu dhalay meesha la Nisaabur magaaliya ayaa lagu dhalay sanadka markii uu ahaa 204 sano markii uu ahaa 204 sano markii sanadka hijriga ahaa ayaa halka lagu dhalay wuxuuna dhintay markii ahay sanadka markii uu ahaa 261 oo hijrada ayuu dhintay imaamkaasu axaadiista uu kulmiyana oo maartay markii la fiiriyo ayadoo qayr mukarrar ah hadaan la soo celin axaadiis waxay ahayd afar ma wuxuu kulmiyay 4,000 xadiis ayuu imaamku kulmiyay ayaa la yiraahdaa markii mukarrarka laga saaro hadii la soo celceliyo mukarrarka uu soo laabtay la yiraahdo fiiriyana waxay ahayd baa yiri maartay 700 iyo waxa wala 7,000 iyo maartay 275 xadiis ayay ahayaan baa la yiraahdaa imaamku waxa la yiraahdaa marka xadiistaas wuxuu qorayaa leeshay 10 sano ayuu qorayaa ku dadaalay imaamku ilaahay ha u naxariistay imaamkaas marka Qushayri wuxuu ku dhintay la yiri sanad maartay 57 sano kaliya asagoo jira ayaa imaamkaasi dhintay baa la yiraahdaa aimo kale waxaa jira oo afar ah oo aan ku dareyno oo maartay yani aimada sita la isku yiraahdo hadduu ii saamaxo doctorka insha Allah taala su'aashaas waxa weeye kitaab Abu Daawud ninka la yiraahdo imaamkaas asaguna waxa weeye Suleymaan ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir as-Sajistani ayaa la yiraahdaa waxaa la dhalay sanadka markuu ahaa 202 ayuu dhashay la yiraahdaa wuxuuna dhintay markuu sanadku ahaa 275 ayuu ku dhintay ilaahay ha u naxariis oo hijriga ah imaamkaas wuxuu dhintay asagoo jira 73 sano ayuu dhintay umrigiisu inta ayuu jiray ayaa la yiraahdaa intaas axaadiistu kulmiyana waxay ahayd baa la yiri imaamkaas 5,274 xadiis oo axaadiis rasuulka ayuu aruuriyay noo soo aruuriyay ilaahay ajir badan ka siiyay imaam kalena wuxuu ahaa imaam Tirmidhi waxa la yiraahdaa Maxamed ibn Ciisa ibn Suura at-Tirmidhi waxa la dhalay sanad markuu ahaa 209 sano markuu yahay ayuu dhashay imaamkaasu waxaana uu dhintay 200 iyo maartay 79 sano markii ay hijrigu ayuu dhintay wuxuuna maartay imaamkaasu umrigiisu markuu dhintay wuxuu jiray 70 sano kaliya wuxuu jiray 70 sano ayuu jiray imaamku ilaahay ha u naxariistay wuxuuna kamid ahaa baa yiri aimadii maartay talaamiid al-Bukhari imaam al-Bukhari xartiisa ayuu kamid ahaa axaadiistu kulmiyana waxay ahayd baa lii 3,000 iyo 900 iyo maartay iyo 60 maartay 56 xadiis 3,000 iyo 956 xadiis ayuu kulmiyay ayaa la yiraahdaa imaamka kalena wuxuu ahaa imaam an-Nasa'i waxa la yiraahdaa imaam an-Nasa'i oo Ahmad ibn Shu'ayb ibn Ali ibn Sanan an-Nasa'i waxa la dhalay sanadka markuu ahaa 215 ayuu dhashay ayaa la yiraahdaa oo hijriga ah waxa lagu dhalay Nasa magaala la yiraahdo wuxuuna dhintay baa sanadka markuu ahaa imaamkaasi wuxuu dhintay sanadka markuu ahaa maartay 3,000 maxaa la 300 markuu ahaa oo hijriga ah ayuu dhintay baa la yiraahdaa umrigiisuna wuxuu jiray la yiri maartay 85 sano asagoo jira ayuu dhintay ilaahay ha u naxariistay ayuu dhintay axaadiista uu noo soo kulmiyay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay gaartay baa la yiri imaamkaas 5,000 iyo maartay
iyo toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiid ayuu kulmiyey imaamkaasu ilaahay naxariista ka waraabiya isagana imaamkii ugu dambeeyey marka aan raba inaan sheego oo imaam ahl maaragtay oo ah culama maaragtay aimatu sita la yidhaahdo sita yani xadiidka lixda ugu horeysa waa aimada waaweyn oo lixda ah oo nabiga xadiis soo kulmiya waa waxa ugu dambeeyey ibn maajah waxaa la yihahdaa maxamed ibnu yaziid ibnu maajah الربعي الغزويني ayaa la yiraahdaa waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 209 sano oo hijri ah ayuu dhashay ilaa wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 273 sano markay ahayd hijriga ayaa imaamkaas dhintay ayaa la yiraahdaa imaamku ilaahay naxariista ka waraabiye xadiis uu soo kulmiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii la sukeeno waxay ahayd bal xadiistaas waxay ahayd 4341 xadiis ayuu soo kulmiyay la yiraahdaa cumriga ku dhintana wuxuu habaaliyay 64 sano kaliya ayuu ku dhintay 64 sano kaliya isagoo jira marka aimadaas way dadaaleen sanadkoodna xataa aad buu u yaraa marka insha Allah su'aashaas sidaas ayaan insha Allah rabaa inaan wajawaabo insha Allah ta'ala ilaahay ajr badan ayagana ka sii annagana ku cilmiga xadiisaas barta saxiixa ilaahay naga yeelo subhanahu wa ta'ala ilmahoodana bara adduunyo aakhirana ka faa'iideysta